barnaamijka cayaaraha waxaan rabaa in aan ku soo qaato waxyaalaha ugu dambeeyay ee ka dhacay cayaaraha adduunka iyo kala iibsashada suuqa, taasoo aan la soconno cayaarihii Premier League inay dib u furmi doonaan bisha Agosto oo wax badan aysan ka harin. haddii aan u leexdo cayaaraha adduunka waxaan la soconnaa in la ballaariyey oo 48 koox laga dhigay, saas daraaddeed waxaa batay tirada calaamad la dhiibo calaamada gaduudka iyo yelowga iyo goolasha labadaba 277 oo waxaa la dhiibay yelowga ayaa la dhiibay kaarka yelowga loo yaqaano 15 red cardna waa la dhiibay 13 kamida si toos ayaa loo siiyey 2 kamidana 2 yellow ayay qaateen. waxaa kaloo ka dhashay 308 goolna way ka dhasheen, taasna waxay keenaysaa tirada guud ee cayaarta la ballaariyey. tababarayaal badanna wax la ceeriyey iyo wax ka tegay ayay iskugu jiraan, oo waxaa ugu dambeeya tababaraha Faransiiska oo ka tegi doona Deschamps iyo Scaloni oo asigana Argentina, kaasoo aan u malay doono inuu ceeb kala tegay cayaartii ugu dambeysay oosan cayaar fiican kooxdiisa ay soo bandhigeen. waxaan kaloo la soconnaa in cayaaraha adduunka cayaaryahankii ugu fiicnaa inuu noqday Rodri, kaasoo City u dheelo oo la siiyey koobka aandhaha kubadda dahabka in la siiyo oo noqday cayaaryahankii ugu fiicnaa, waana markii saddexaad oo Rodri oo arintaas uu ku guuleysto. waxaan la soconnaa 2023 inuu ku guuleystay cayaaryaha Ballon d'Or inuu ku guuleystay ayaa la soconnaa, kadibna Euro inuu ku guuleystay 2024 waa guushiisii saddexaad. cayaaryahanka Kubasi oo laftigiisa u cayaaro kooxda Barcelona xulka ka tirsanaa 19 jir ahayna wuxuu noqday cayaaryahanka ugu fiican dhalinyarada yaryar ee mustaqbalka leh ee soo socoto ee cayaaraha adduunka ka cayaaray ayuu noqday. goolhayaha ugu fiicanna Simonis ayaa noqday, kaasoo hal gool keliya laga dhaliy oo wixii oo dhan waxay u bateen inay dhankaas iyo Spain ay wada aadaan. Mbembena wuxuu ku guuleystay gool dhalinta ayuu ku guuleystay, oo waxaan la soconaa 10 gool inuu dhaliyay cayaarahan adduunka. guud ahaanna asiga ayaa rikoorkaas haysto oo 22 gool ayuu leeyahay, inkastoo Messi loo magacaabay cayaaryahanka ugu fiicnaa kan labaad oo Rodri inuu ku xigay. haddii Argentina ay ku guuleysan lahayd waxaan qabaa in la sii lahay Messi inuu qaado lahaa, hase yeeshee guuldaradii ku dhacday ayaa u sababahayd in Rodri la siiyo. Spainna way istaahishay inay ku guuleysato cayaaryahanka ugu fiican, oo sababtoo siday u cayaaraysay cayaar aad iyo aad u xiiso badan ayay soo bandhigtay. haddii aan u leexdo dhanka iyo kala iibsiga suuqa, waxaan la soconnaa Premier League in kooxaha qaar ayba tababarkii ay bilaabeen markii laga reeba cayaaryahanada cayaaraha adduunka cayaaraya, laakiin inta kale badankood way soo noqdeen oo tababarkii ayay ku jiraan. kooxihina suuqa ayay ku jiraan oo tababarayaal cusub ayaa yimid, oo waxaan la soconnaa Liverpool inuu yimid, Orale inuu u yimid, Chelsea inuu Xavi u yimid. waxaan kaloo ognahay City inuu Enzo Maresco inuu laftaantiisa u yimid, oo kooxii waaweynaa inay soo xoojiyaan. laakiin wararka ugu waaweyn waxaan la soconnaa cayaaryahankii Faransiiska ahay Saliba Arsenal inuu dhaawacmay, sidaas daraaddeed waxaa la leeyahay cayaaryahankii City John Stone ayaa loo maleeyaa inay qaataan, kaasoo lacag la-aan ay ku qaadan doonaan, ay ku talageli doonaan in cayaaryahankaas Saliba oo loo maleeya dhowr bil inuu maqnaado inuu booskaas uu sii ilaaliyo. laakiin wararka waaweyn waxay yihiin cayaaryahanka Morgan Roger oo Villa u dheelo oo nambarka 10aad ka dheelo, dhinaca bidixdana ka dheelo, ayaa aad iyo aad la isku haystaa 117 milyan ayaa lagu rabaa. hase yeeshee Arsenal ayaa rabtay, hase yeeshee Chelsea ayaa meesha soo gashay, waxayna u badan tahay inuu dhankaas iyo Chelsea aado. kooxda Ingiriiskana maanto Isniina ayay waxay kusoo noqon doonaan magaalada Ingiriiska ayay kasoo degi doonaan. hase yeeshee ma loo maleeyaa maanta inuu medicalka mari doono iyo in kale lama ogo, laakiin Chelsea ayay u badan tahay inuu dhankaas iyo Chelsea u aado. waxaan la soconnaa Cole Palmer asiga inay saaxiibo yihiin, ay xilliga yaraayeen City inay isla joogi jireen, ciyaalka City ka soo baxay inay ahaayeen. marka Chelsea aad iyo aad ayay isu dhisaysaa oo suuqa ayaa lagu wadi jiraa, kooxahana cayaartooy waaweyn ayay raadinayaan. laakiin waxaan jeclaan lahay barnaamijyadeen dambe inala soo socodsiiyo wararka waaweyn ee suuqa iyo sida loo kala gadanayo. Rashfordna wuxuu haystaa saacado yar oo ku go'aansanayo inuu joogi doono Manchester United iyo inuu u noqon doono Barcelona iyo inuu koox kale u aadi doono. asigana muddo gaaban ayuu haystaa
oo arrintiisa lagu xalin doono. waxyaalahaasoo dhan barnaamijyeen dambe ayaa inala socodsiin doonaa. Premier League-na hal bil ayaa nooga hartay ilaa haddii oo ka raali noqdo. ayay ku jiraan kooxeena suuqa ayay ku jiraan oo tababaryaal cusub ayaa yimid oo waxaan la soconaa Liverpool inuu yimid, Orale inuu yimid, Chelsea inuu Xavi u yimid, waxaan kala ognahay City inuu Enzo Maresco inuu laftaantiisa u yimid oo kooxii waaweynaa inay soo xoojiyaan. laakiin wararka ugu waaweyn waxaan la soconaa ciyaaryahaankii Faransiiska ahay Saliba Arsenal inuu dhaawacmay. sidaas daraaddeed waxaa la leeyahay ciyaaryahaankii City John Stone ayaa loo maleeyaa inay qaataan, kaasoo lacag la-aan ay ku qaadan doonaan, ay ku talageli doonaan in ciyaaryahankaas Saliba oo loo maleeya dhowr bil inuu maqnaado inuu booskaas uu sii ilaaliyo. laakiin wararka waaweyn waxay yihiin ciyaaryahanka Morgan Roger oo Villa u dheelo oo nambarka 10aad ka dheelo, dhinaca bidixdana ka dheelo, ayaa aad iyo aad la isku haystaa. 117 milyan ayaa lagu rabaa. hase yeeshee Arsenal ayaa rabtay, hase yeeshee Chelsea ayaa meesha soo gashay. waxayna u badan tahay inuu dhankaas iyo Chelsea aado. kooxda Ingiriiskana maanta Isniina ayay waxay kusoo noqon doonaan magaalada Ingiriiska ayay kasoo degi doonaan. hase yeeshee ma loo maleeyaa maanta inuu medicalka mari doono iyo in kale lama ogo, laakiin Chelsea ayay u badan tahay inuu dhankaas iyo Chelsea u aado. waxaan la soconaa Cole Palmer asiga inay saaxiibo yihiin, ay xilliga yaraayeen City inay isla joogi jireen, ciyaalka City ka soo baxay inay ahaayeen. marka Chelsea aad iyo aad ayay isu dhisaysaa oo suuqa ayaa lagu wada jiraa. kooxahana ciyaartooy waaweyn ayay raadinayaan, laakiin waxaan jeclaan lahay barnaamijyadeen dambe inala soo socodsiiyo wararka waaweyn ee suuqa iyo sida loo kala gadanayo. Rashfordna wuxuu haystaa saacado yar oo ku go'aansanayo inuu joogi doono Manchester United iyo inuu u noqon doono Barcelona iyo inuu koox kale u aadi doono. asigana muddo gaaban ayuu haystaa oo arrintiisa lagu xalin doono. waxyaalahaasoo dhan barnaamijyeen dambe ayaa inala socodsiin doonaa. Premier League-na hal bil ayaa nooga hartay ilaa haddii oo ka raali noqdo.